dhowr xikmadood oo aad muhiim u ah. Xikmadahan waxaa laga soo wariyay Luqmaan al-Xakiim oo ahay nin aad u xikmad badan, waxaana lagu sheegay Qur'aanka Kariimka, suuraddana waa lagu magacaabay. Xikmadda koowaad waxay oranaysaa sida tan: Luqmaan al-Xakiim asagoo wiilkiisa la dardaarmaya ayuu wuxuu ku leeyahay: wiilkaygiiyow, Ilaahay ha u shariik yeelin. In Ilaahay loo shariik yeelo waa dulmi weyn. Xikmadda labaad: wiilkaygiiyow, salaada tuko, dadkana amar wanaagga, xumaantana ka reeb. Wiilkaygiiyow, laba weligaa ha xasuusan. Xumaanta ay dadku kugu sameeyaan weligaa ha xasuusan, wanaagga aad adigu u samaysidna weligaa ha xasuusan. Wiilkaygiiyow, laba weligaa ha hilmaamin oo xasuusnaaw. Dikriga Ilaahay weligaa xasuusnaaw, geeridana weligaa xasuusnaaw. Intaas ayaa ku soo koobaynaa. Aad ayaan u mahadsantihiin.